ragga waxaad arkaysaa in dulmi aad u far badan ay ku dhacaan ayagoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan kaga cabsanin xaasaskooda haddii aad hooyada iyo aabaha aad caasi aad u ahayd ilmaha caasi noqonayaan walidaalka culimadu waxay yiraahdaan waxyaabaha adduunyada ku soo degdega ciqaabta oo adduunyada ku soo degdegta waxa ka ugu horeeya kamid ah waalidiinta caasnimadeeda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله إله مهديس هذا المركز هذا قصة الله بني أنا جو مركز تسكو شيخنا وناك حمد إذكر من إلهي سبحانه وتعالى كبري لما أنت الإله ونقد يقوك انتفاع وحلا شيخه وجودا بي وحن كهذا صفاتكم منافقين تو نصور دماذج waxaan ka hadlaynaa bilaabina oo muhiim ah idin diinteena islaamka si aad u ogtihiin ikhwaani waxay ku dhisan tahay akhlaaq ay ku taagan tahay inama al-umamu akhlaaqun in dhahabat akhlaaquhum dhahabu ummadda haddii akhlaaqda ka tagtana ayadana ummad ma aha kuwa nacam Soomaaliya hadana anaga dhibaatooyin badan soo marnay ilaahay waan imtixaanay ilaahay waxaan ka baray imtixaanka halkaasna uu nagu okeeyo ummadaas qalbigeeda isjeclaysiyo wadanka noo hagaajiyo oo dawlad islaam ah qayr qabta ilaahay na siiyo معناها دولة عادلة حقيقة وحيابها نلقو امتحاني دول كانوا قميسي صوق قلي وحيابها مسلم كاه wax kasta waxa ka muhiimsan inuu diintiisa qofka loo soo dhaco qofku markii diinta laga qaato oo ku dagaalamayay ama oo naftiisa u huray oo qofku wuxuu ku taagan yahay akhlaaqdiisa wuxuu ku dhisan tahay diinta islaamka ku dhisan tahay hadii marka diintiisa arinta waxa qofkaas waa halaagsamay walidaalka ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofku diinta ka qaado ama qofka uu diinta ka laabto oo gaalnimo noqdo qofkaas halaagii dambe uu ku dhacay ilaahay khayr lama doonin ilaahay ayaan ka maga galnay saas daraadeed ikhwaani waxaan nagu soo batay maalmahan social media aad waxa moodaa arin diinteena taabanaysa inay ku faaftay oo akhlaaqdiina taabanaysa oo ah in waxba miisaanka diinta la saarin marka xalaqooyinkan ka hadlayna waxay ka hadlaynaa oo ah faaxishada in lagu faano in faaxishada la faafiyo taasoo ah diinteena waxay mamnuucdo ah inuu qofka muslimka ah diinteena waxay ku dhisantahay xishood saas daraadeed nabiga calayhi salaatu wasalaam min al-iimaan xayaaga wuxuu xishoodku wuxuu ka mid yahay diinteena ayaa asaas u yahay iimaanka waa balse wuxuu leeyahay xishoodka iimaanka qurina jamiican fi in raf'a ahaduhuma raf'a al-aakhar haddaad aragto qof xishoodka laga qaaday iimaanka laga qaaday wal ciyaadu billaah marka iimaanka laga rafaco wax sahlan maaha saas daraadeed waxaad mooshaa marka in hadafna laga dhigtay Soomaali haddaan nahay nacam dhulkii qabiil waana lagu imtixaanay qabyaalad waana lagu imtixaanay laakiin inay ay faafto faaxisho aan raali iskaga naqano oo gabadhaada ama gabadhayda ama walaasha ama xaaskaaga oo TV social media Facebook noo jaadka noo yimaado oo ka xishoonin waxyaabaha diinta aan ku xusheeno asagana darar u keenayso ummadana darar u keenaysa oo diintana darar u keenaysa ayaa naqday saas daraadeed xalaqaadkeena waxaan ka hadli doonaa qaa'ilkan oo ah social media ah dhibaatada uu leeyahay ما فائدته له قصاره له إن أوجانه فاحشة الفافنة عاقبة هذا محك الدبين دونه محيا لضد بدن أيه وحي أركا أسفني إني وحسوق جريان سناب جاب كان إسكت دوبته تعونس عنت ذا صو صورته أما قبل قاون إني قاون ذا صور لقته نين إنك كل جن أما فحشة ثمانة إني فيسبوك يسوق قرآن أما قبل وريس لا يلا نايو وحمان كشكاين يسو وأفقى على الحشونين وأجرك على الحشونين وأرنت الديني إن قتمرك ساس درادت وحرب على الله سبحانه وتعالى وحلقيها dadkaas walaalaheena inay arintaas ay ka waantoona oo ka maantoon dadka qaarkood waxay u sameynayaan faniga lacag ay soo galayso wuxuu ku leeyahay YouTube-kayga intaas clip ayaa dhageysatay intaas oo kun ayaa daawatay war billahi calayk ma ogsoon tahay qiyaamaha inay inta kun ay ku daawatay inay ku markaa furayso ma ogsoon tahay bari inay ilaahay subhanahu wa ta'ala maalin gacnahaaga iyo lugahaaga tashhadu alayhim alsinatuhum wa arjuluhum ay tahay inay hadii markaati lagu wal maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay karaama kaatibiintu waxay qoraysaa markay qorto qiyaamaha ayaa loo soo bandhigayaa marka qaara inkira waxay leeyahay aniga ma sameeynin markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala markaati uu keenay adiga markaati u baahnid in lugahaaga kugu fasiraanba waxa kaaga adag intaas oo malaayiin ay daawata ku faanaysa maxay daawatani igu qaawin ku daawatay gabar ciyaaraysa ama qaawan ayaa soo dhageysa gabar ayaa waxay soo dhigaysaa snapchat-keeda waxay soo dhigaysaa sheekeynaysa asraarta guriga ka sheekeynaysa cuntada cunaan nicmada ilaahay si nicmada nacam nicmada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxa ku jirta nicmada in qaarkeed la qariyo oo
dhibaato ka baqaysa maxaa yeelay wuxuu leeyahay istaciinuu calaa katmi xawaa'ijikum calaa qadaa'i xawaa'ijikum bilkitmaan fa ina kulli nicmatin laha xasuud maanta cunuga kuu dhalanayo cunugiyaa waxaa leedahay waa i dhashay cuntaa cunaysaa war dad masaakiin waxaas heli karin hadday ku qabat hadhow waxaa leedahay marka sheekha qur-aanka isaaray halay raadiyo waxaa leedahay maxaa kuu keenay waxaa kuu keenay adiga ayaa wax qaad xumaanaad samaysay xalay meel baa joogtay wiilal iyo gabdhaha raqsi samaynayeen oo ikhtilaad samaynayeen ayaa soo dhigaysa waxaa leedahay arooskaasaan ka dheelaya halay arko facebookaa soo dhigaysaa snapchatkaa soo dhigaysaa markaatiyaa isku samaynaysaa bilaahi calaykum masalada faray ka baxda marka hadday faraha ka baxdana waxayna waasici waa in loo naqdaa marka miisaanka diinta in la saaraa xalaqooyinkaas ayaan ka hadlaya maxaa yeelay wuxuu leeyahy in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha yuxibuuna waxay jecel yihiin faaxisha inay faafto keliya dadkii ka faafinaya mid kasta wadalika imaam tabari iyo keyrkiis waxay dhahay faaxishada la faafinaya waxaa kamid a xumaan kasta banaanka aad keentid wuxuu leeyahay nabiga calayhi salatu wasalaam dadka mujaahiriinta ee nabiga kullu wuxuu li ummatii mucaafiwa ila almujaahiruun kuwa ku faanaya dembi ku faanaya billahi calayk maxaa ka faa'iideysaa adigoo qaawan inaad ummadana soo dhigtid maxaa ka faa'iideysaa inaad cuntada cunayso soo sawirtid maxaa ka faa'iideysaa dharka ilaahay ku nicmo ku sii inaad soo sawirtid maxaa ka faa'iideysaa hadday il ay ku qabanba waxay noqonaysaa waa istihzaa weeye waxa waaye ummad ayaa ku jaasjeesa nicmo ilaahay ku siiyey ayaa dadka waxaa rataa inaad ku faantid aad dhahday nicmadana faan ma aha istus weye rayaaga waa la diiday waxaa arkaysaa qof dawaafaya oo cibaadada ku jiro dawaafka soo sawiraya snapchat live-ka ah ama ku dhahay war cibaadada reeyada waa laga ilaaliyaa saas daraaddeed ayaa wuxuu leeyahay imaam tabari in aladiina yuxibuuna ilahi wuxuu leeyahay kuwa jecel iska dhaaf kuwa faafiya ka waran marka kuwa faafiye ka waran waxaa imaanaysa marka inay diinta ay naqato diin laiska sahla maxaa yeelay gabadhaana filin qaawan soo gelisay tana iyadoo qaawan ay soo sawirtay mid kale aa timid maxay heli yaraa laga yaaba in qolada youtube-ka ay ku siiso laakiin inta qof fiirsanaysa dembigaas ay u faafisa ka waran waxaan ugu dhex faaftay marka fani hebel maxay samaysay hebel saasay samaysay hebel saan uu sameeyey oo qosol iska naqata ikhwaana diinta qol maaha diinteena waa xayaa ku dhisan way marka inaan iska kaashano إن جريمة إنسان وذلك قلب النبي عليه الصلاة والسلام وعليه تعرض فتنة على القلوب كالحصير عودا عودا وعليه قلبي فتنة مركز دنبا فأيما قلب من أشربها ما أنت هدات في سناب شات أما فيسبوك أما يوتيوب لغوصة دري وحمان فافينيسو أما قبر قاون هذه سيقود بسيط قلبي مركز دنبا قلبي وكريسة قلبي مركز دنبا ودبول ميا إلا مركز دنبا إسكسو علي كرين سوشيال ميل قال علين كرين أكو فافتي أتراهيد ما حد أيام كبقيا أنا حرة تيفيكي أنا أسكله موبايلكيga أنا أسكله diinta xornimadeeda dadka kale waxay leeyihiin ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu wuxuu leeyahay ragga markuu la hadlayo wuxuu leeyahay in indhaha la daboosho adiga igu macaawinin inaad dadka indhaha dabooshaan walidaalika faaxishadii way faaftay rag iyo dumar iska soo galaya maanta waa la isku niikinaya gabar iyo wiila ninkuu soo diray wuxuu ku leeyahay arag waxay sameynayaan billahi alayk ha faafinin haddaad aragtay dilid garay maxaa yeelay waxaa ka qayb qaadanaysaa nashr alfaaxisha ka qayb qaadanaysaa qofkii satara ilaahay subxana taala sitri ayuu man satara musliman wuxuu leeyahay diinteena waxay ku dhisantaa akhwaani diinteena maaha salaad la tukada kaliya maaha diinteena waxa waa akhlaaqa asal u ah walidaalika nabiga calayhi salatu wasallam waqaaliqu nnaas wuxuu ittaqi allah xaythuma kunta وأتبع سيئة حسنة محا وخالق الناس بخلق حسن وأي قلق وحور أقربكم منزلة وحان دتك وأخلاق بدن لكن إيه أخلاق ذي ما أنت حشوتك كتكتو وقبله يدمركي أو عيبته هذا ما أنت الأركايو أو أرجنو أن إلهي قفو أستر حالي وماشي جوج عد أكسونين أروسكو كي قبل الجبل لما يقان أروسكو كي قبل لما يقان دركي حرني لما يقان وقاونيد إلهي أستر إلهي وأقولك إنه لقوا يمركه لكن waxay soo dhigtay snapchat-ka soo dhigtay wixii arkaysa uu neekinaya arka dad isku markaa qaawna la arkaya arasku soo dhigay ma aragtay saaxiibadeed farandigay war ay farandi ay tusaysaa yaa ku bani curada inaad tustid gabadhaas la qaba laga yaaba ee reer leedahay war ittaqullaah war ilaahay ka cabsada waxa ka cabsataan dhibkay leedahay dembigan ama markaatib isku social media isxaan laguma sameeynin waxaan fariiga arkaysaan wax la adigu dib ku keenay way ogsooyin ummadda markay ka awoodin indhaha salaada jooji markay ka gari waayeen gaalada ee diinta ka bax ay waxay ku heen akhlaaqada akhlaaq laga dheer diintan akhlaaqay ku dhisan tahay waan sheegan al hayaa min al iimaan way qofka hadii xishoodka laga qaado oo xumo kasta oo uu soo sheegayo waxa arkaysaa nina iyo gabar wareysanayo wuxuu ka wareysanaya xaaraan ku wareysanaya wuxuu ka wareysanaya waxyaabo afka soo qaban karin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay nabi wuxuu leeyahay kafa bil mar'i ismu waxa dambi kugu filan an yuhaddithu bi kulli ma sami'a markaasa forward copy wala isku dira facebook wala isku dira waxa isku whatsapp kala isku dira xumanta la faafina وهي دين هيسنا إخواني ولذلك وحن قبا أنيق أمة الصومال هدان نهي أمة الإسلام كهدان نهي
diinteena haddii loo soo dhigto waa in dadka laga qabtaa. walidaalika xalaqaadka soo socda dhan inta badan waxaan kaga hadli doonaa arrimahaas facebooka adilo aan u keenaya insha allah. qadka telefoonka halow, qofkaas waa ka go-aan filaya insha allah, telefon ma jiro. marka waxyaabaha ay leedahay waxaa ka mid ah inxiraafa ummadda ku dhacay. fiiri, gabadhan macsida ku dhacday ilaahay yaa asturay, war macsida ida ku koobneed, laakiin markay facebook ay soo dhigto ama ay soo dhigto social media ay soo dhigto waxaa imaanaya inay dhacdo imaanayso dad kale ayay halaynaysaa, gabadha ku dayanaysaa. walidaalika nabigu wuxuu leeyahay man sanna sunnatan sayi'a, xumada ninkii bilaabay dembiga loo qoraya. war qofka aad dirtay wax xun haddii lagu soo diro war meesha ku dili garay. nacam, halow halow. sheekh asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu. sheekh waxaan rabaa su-aal inaan ku weydiiyo. haye, qofka markuu dhowr cimro iyo xajba uu galo mar walba ma inuu sameeyo ixraam ba mise waa inuu maaragtay dhar ku xidhan yahay ku tago xaramka haddii ilaahay geeyo? mar kasta ixraama laga rabaa. ninka kastoo cimro sameynaya, nin kastoo xaj sameynaya, dharka ixraamka inuu labisto wey. gabar hadday tahay dharkay ratay gasho kartaa, dhar ixraam gaar ma jiro. laakiin raggii laba go-a laga rabaa iyo wax oo tolan inay gashanin oo ningiis iyo waxaas inay gashan. ama gabdhaha dharkay rabaan ku haddii aad wadato awlaadaada ama odaygaagana adi muxrama ula jeeda, ixraam ula jeeda, muxrama ula jeeda. dharka la xirta waa sheekh muxramka ula jeeda, ninka oo muxramka ku ah. halkaad kasii xidhanaysaa London mise markaad xaramka tagto meelihii xaramka u dhawaaya laga soo xidhan jiray waad ka ixraamsanaysaa? maya marka miiqaadka intaad xaramka gaarin inaad xiritid waay. xaramka intaadan gaarin macnaha magaalo kasta waxay leedahay miiqaad. magaalooyinka lagu sii hakada ee maxay tahay transferka loo galo oo kale meeshaasaa laga qaataa. maadaama diyaaradda lagu bedelan karin wadamada transit ku taa ku xiranaysaa. shanaad inay ahayd baan rajaynayaa sheekh. baan mar ku hakanay oo raggu ixraam kasii xidhanayay. waa kaa maxaa yeelay lama doonayo qofka asoo ixraam wadani inuu dhaafo miiqaadka nabigu ugu talagalay calayhi salaatu wasalaam. haye, nacam. wax kalaan ku weydiinaya iga raali noqo sheekh. haye sheekh weydiin karaa? waa weydiin kartaa. wiil aan dhalay ayay gabadh waxay kala tageen 3 goor. waa gartay. dalqadii u dambeysay markay kala tageen waxaa naloo soo sheegay bil intaanay maqnayn inay tidhi waxaan samaynaa marxal si aan ninkayga ugu noqdo. waa gartay. bishiiba intaanay dhammaan waxaana lagu yidhi nin bay guursatay oo ninkii waa iska furta, waxay tidhi ninkaygii waan ku noqonaa. xalaal miyaa? may xalaal maaha mise waa xaaraan? xaaraan wey. ninkii dambe ay ku naqateen ma banaan, kii horena wax uma banaan, labadaba xaaraan kii. allah khayran, ilaahay ajar badan ha ku siiyo. amiin. qaadka dhinaca kale. halo halo. sheekh cusmaan. sheekh cumar. sheekh cumar aseway. alxamdulilah. maxaad yaad akhbaarkeen? alxamdulilah. ya waa la fiican yahay alxamdulilah. ma ku arkaa maxaa waye? nacam, telefoonka igala soco, tv-ga iska daa, telefoonka iga sheekh waa kan. sheekh cusmaan. halo. aniga sheekh cumar seen faa'iido. sheekh cumar, nacam, waa ku gartay. wallahi sheekh, wallahi adi darsigaada camal ma la ilaayo. adiga sheekh cusmaan iyo sheekh maxamed kenyawi lama sheekh oo lilaahinima ku soconaysin waaye. kuwii kale laakiin ya ilaahay soo hanuuni, iyaga dhan allah hanuuni insha allah. dhammaanteena xaqa allah na tuso, khayr allah ku siiyo. dhinaca kale halow. asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu. wala socda sheekha miya? waxa waaye waan arkay maanta facebooka, horta waan wareeriyey, noogu soo duceey. codka kor u qaad wax yar. facebooka waan wareeriyey. haye. ummadii waa wareeriyey. sheekyaashii aawa ha noo duceyso. soomaali ducay u baahan tahay maanta, waa inay duceysaa. gaarsii int sheekh aad aragtidba iga gaarsii intaas hooyo soomaaliyeed aan ahay. waa gartay. baaraka allahu fiik. ya jazaaka allah khayr. ilaahay kusiiyo, adda ilaahay ajra ku siiyo. amiin, jazaaka allah khayr. halo. طيب. ولذلك مسألة ما aha ikhwaani, ilaahay waa ogsoon yahay. dadaa waxay leeyihiin number magac waxay qaadanayaan, magacooda ma magac kale ku galayaan facebook, waxay leeyihiin dadkeena ogaanin, laakiin waxay faafinayaan war ilaahay yastakhfuuna min annaasi walaa yastakhfuuna min allah. war ilaahay waa ku ogsoon yahay, magac kasta qaado, wax kasta isku qari, laakiin waxaa leeyahay inaad faafisid ayaa la diidaya. walidaalika
nabiga calayhi salatu wuxuu leeyahay kullu ummatihi mucaafin wey dadkan oo xumada soo faafinaya xadiiskan si fiican u dhageystaan wuxuu leeyahay nabiga calayhi salatu wasalam waa la cafinaya ila almujaahiriin mujaahiruunta maahane mujaahiriinta ila almujaahiriin wuxuu yidhi ina min almujaahara waxaa ka mid ah dadka wax ku jahraaya waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay an yacmala rajulu bileynkii uu xuma sameeyey wuxuu yidhi fayasturu ثuma yusbix waqad satrahu allahu subaxdii ilaahay waa bariisiiyey xal aroosay ka qayb gashay meeshii ka soo cayaartay way ka soo niikisay xumaan ay soo samaysay asturay cid ogsoon ma laha cid ogsoon ma laha ilahay waa asturay ثuma wuxuu le fayaquulu mar wuxuu leeyahay subaxdii wuxuu leeyahay fulan camiltu lbaarixa ani halkaasaan jiray waxaasaan soo sameeyey waxaasuu leeyahay walidaalika subxaana tacaala kashfigii satrigi u sameeyo iska kashifu yiri nabiga alayh salatu salam walidaalika qiyaamaha waxaa dhacayo ninka adduunyana waa lagu fadeexaynaya aakhirana waa lagu fadeexaynaya saasay dhaha culamada markii xadiiskaas ay fasirayeen wuxuu leeyahay rafcu lmujaaharada waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala qofkaas inuu xishood ka qaado maxaa yeele asaa ku faafay xishoodka ilahay kaa qaadayo maalin kasta marka maanta dhan snapchat intaa ku fariistay intaa ku qadeeyey intaa ku yeelay aad leedahay walidaalika snapchatka khaasatan markaan ka hadlayo snapchatka waa fitno ka weyn ma laha maxaa dhacay fitno ka weyn waxay tahay qofkaan lahaa dhan ayuu dhaha horta sir wey u tahay dowladda iyo haddii la rabo ninkaan la dabagalo meeshuu joogo iyo wuxuu qabanaya dhan saa iska fadeexiyey tan kalena ugu daran waxay tahay war nicmada ilaahay subxana wa tacala cunno soo sawirnaa bisinka muu qabanayo cuntada nebigu wuxuu leeyahay kul bisinka muu qaban muxuu sameeyey wuxuu leeyahay horta cuntada sawiraya snapchat baa kaa gelinaya billahi calayk nabiga calayhi salam ina alcayna laxaq uu yidhi caynta isha waa xaq wixii faafisay hadhow waxaa imaanaysa quraanha lagu akhriyo qabtan waa la ilaysa alla isku keenay isha dhinaca kale qadka telefoonka halow 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 waa ku maqlaa halow waa ku maqlaa waa ku maqlaa telefoonka ka hadal tvga iska daa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ميا. ها. تيفيك اسكت على تلفونك يقول هذا. أيوة شيخ سؤال أنا وين أقول ديو. هي تيفيك اسكت على تلفونك يقول هذا. عذا وقتك هو صعدي. جوجا حلال ميا مصور حرام. فيسبوك iyo waxaan hadda ka sheekeynayno haddii xumaan loo isticmaalo xaaraan wey maxaa xaaraan waxa weeye xaaraamu ligayrihi alla xaaraamu lidaati maaha laakiin xaaraamu ligayrihi dhan usuuliyiinta maxaa ligayrihi lagu yiri waxa la yiri haddii aad xumaan ku faafinayso Facebook oo qaybeeleed aad ku faafinayso oo aad islaamo qaawan iyo niman cayaaray iyo qurun aad soo saarayso xaaraan wey walidaalika xaaraantiisa weli faafisa cid kasta oo beedkaaga daawata oo xumaantaas ka daawata adiga dib ku leedahay boqol kun ku daawata boqol kun dembigooda iyagoo kaaga laga naaqosin iyagan kooda laga naaqosinin ayaa adin laga qaadanaya maxaa dhacay man sanna sunnatan sayi'ata qadka telefoonka halow dhinaca kale halow assalaamu calaykum sheekh wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waxaa ku weydiihaa haddii qofka gabadhii dhinka ay warqada ka codsato oo warqadeeda uu siiyo meher maa ku leedahay mise kuma laho hadday warqada ifur tira oo fur meher waa ku leedahay illa asaga hadoo dhihin warqadaada waxay ku xiran tahay meherkii cafi hadoo shardi kaga dhigin oo inuu furin ee dalbato furinka iska siiyo meherkeeda ku leedahay jazaaka allah khayr baaraka allah fiik dhinaca kale halow halow هلا ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ميا. ها شيخ يورد. الحمد لله. سؤال شو كويد الله وحيتها. ها دبياش بني آدم أو قالوا دبياش إلهي ولا عبدين محكمة. دمياش way fara badan yihiin damiyaasha ilaahay subxaana watacaala qofku markuu shirka ku dhinto oo soo gaalnimo ku dhinto gaalka naftiisa waa kasoo hanuuni karaa shirkiga ilaahay subxaana watacaala waxaa laga yaabaa intay nafta ka bixi inuu tawxiidka qabsado laakiin ninka ku dhinto ilaahay wuxuu leeyahy in allah laa yakfir an yushrika bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa walaakin dunuubta sideeda kabaa'ir iyo saqaa'ir ay ka leedahay kabaa'irta toobay u baahan tahay kabaa'irta waxaa ka mid ah faaxishada walidaalika faaxisha waxaa la yidhahaa wax kasta ilaahay zinada ku tilmaamay innaha faaxishatan wuxuu ku tilmaamay zinada
ولذلك إلهي وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن آيات القرآن إنه كلها ولذلك مفسرين من قاعدة وحكوا لي waxa qarsoon itan hoos wala xarimay marka tii hoos u gashay hadii social media akeentid taas oo tan ka hadlayn anaga akhi dhinaca kale halo halo qofkaas waa ka go'an filay halo ma ku jira halo ha assalaamu calaykum wa calaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh sheekh su'aalan ku weydiin lahaa haye waalidkay oo dhintay magaalada ay degan yihiin baa deganay muddo dhowr iyo 10 sano ama watan marka qabuurtooda haddii aan siyaarto aniga oo ma garanaysa aan kolkaa dee oo hin iyo qiiro kale igu jirin oo soo ducaynayo uun ma dhib baa ku jirta may dhib kuma jira ha badsan mar kasta lacana allah zawaaraat xadiiska gabdhaha waxaa laga maray ziyaarada inay badsadaan laakiin inay mar ay tagaan ee qabriga kusoo cibro qaataan oo xadiiska caamkiisa ogalayaan kuntu nahaytukum can ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum aakhira adina waxay ku tahay aakhiro ayada meeshay tagtay ayaa arkaysa idin oo soo duceyn kartaa la baas waa tagi kartaa insha Allah muddo 13 sano deganay magaalada markaa maahan qalbiga iga jirta inaan may u tag waa tagi kartaa soo booq qalbigaaga uu ku dagaya qalbiga waxyaabaha dejiyo waxa kamid qof qabriga inuu booqda kamid inuu qabriga booqdo naam halo هلو نعم ولذلك waxyaabaha mucaafaadka oo qofka ilaahay mujaahirka ah oo dembiga ku jahrayo oo social media soo dhigayo oo xaaraanta faafinayo oo ku faanayo intaas kuna daawato ku faanayo waxyaabaha ilaahay oo ka rafacayo waxa kamid ah xadiiskii ibn Umar wuxuu leeyahay nabiga kaleey in allaha yudni almu'mina maalinta yawm alqiyaamaha ilaahay waa u soo dhawaanaya ninka mu'minka ah wuxuu leeyahay fayadu alayhi kadafu yasturu fayaqulu wuxuu leeyahay ata'rifu kada wa kada markuu u saaro oo u dhawaado wuxuu ku leeyahay ma garanaysaa dembi maalinkaas aa gashay oo qofka muumin ku leeyahay markaas wuxuu leeyahay ay rabb waa ogsoon yahay waa ogsoon dembigaas waa garanaya hatta ida wuxuu dembiga qirto qofka soo nacam waa ogsoonaa u yiraaho wuxuu leeyahay waa ku astur aniga maalinkaasna waa ka astur dadka ma sheegin aniga hadda maanta waa ka cafiyay illa laakiin ninka oo asturin dembigiisa oo dembigiisa aan qarsanno ku faafo waxa leeyahay maalinka ilaahay oo dhahay ilaahay ma dhahay waa ku asturtira ma dhahay ilaahay asaab iska shifay ilaahayna waa ka shifa badan ayaa cudur ka qaaday cudur laga qaaday ikhwaani cudur waxa laga qaaday oo qaasat qalbiga adkaaday maxay ka adkaaday wax kale ma snapchat waxyaabo sawirkeeda iyadoo qaawan maanta saasa yeelay waxa sameeyay dhigeys ama facebooka ayadoo qaawan waxay ka sheekeynaysaa alqawl bil fahisha kaas waa faafabo afka in laga hadlo xumaanta حتى كون روايات دغ كم خشودان ودنبي وين افكاغ ان اد برتد كلمه فاحشه قدك تليفون قالوا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ثقوا الى خير بدنا كسيه جزاك الله خير بارك الله فيك ثقوا ان ما انت وحاوا كل دغيسنا لايف markaas oo gashay la hadda khayr bana Allah ku qof kasta waxay sameeyay ilaa u gudaa نعم laakiin waxa loo baahan yahay dad burburayaan alada Facebook ka hadlay xataa waxyaalo wiila soo fadhiisanay xataa waa la guurtada dhaxayo qashin balaayo dhanaa la arkaa dalkan dayacan iyo dadkan qurbay meel kasta waa ku dayacan ana waxa u baahan inaan dalkeena dhisano waxa u baahan inaan sarafteena ciidada karaamadan aan soo celino ana hal mid aan ka joogi laa shaqo markasta xataa anoo meesha soo gala dadkina ku caayaan jecla waxa koos gareyn waxa xanuunay waxa la haafa taalida ana muwaadin Soomaaliyeed diinta islaamka maxay ka qabtaa dadka la leeyahay afar shan macnaani haafa alisiha qofna fuulwa shariicada islaamka maxay ka qabtaa mid diinta islaamka maxay ka qabtaa dadkan diin kuma macna dad muslimaysan ahayn dadkan macna la dulminayo oo mar walba xaqul xaqooda la duusanayo oo beerooda la oo guryooda la idinka laftiina culimaatiin maanta qiyaamaha waa lidin weydiina ummadan waxa maale ka dhiganta waa u jeeda meel walba dulmi dawladeena dhaxana waxa ay taa waa taageerina dawladda u baahanay adduunka stop way quraanka ilaahay oo ku sheegay dawladda la'aana dhan 30 sano burbursan kaalna waa laba iskuulsatay ee laba ishalaysi balaaya qashin oo dhan waxa ka socdo waa aragtay waxa u baahan waxna qabtay waa u jeedaa hooyo la tarxiilay oo maxay ilmi laga reebanayo adduunka wax aan sugayno kala ma naqaan culimadan aakhir waa la weydiinaa dalkan iyo dadkan badbaadi u baahan yihiin diin waa ku badbaadi weynaa maxaan ku badbaadnaa oo ummadan lagu badbaadi karaa inaan noo sheegtaan rabnaa way diintu waa ku badbaadana أختي waxaad moodaa oo caraysan tahay marka hore isdaji
xaqiiqatan culimmada ma fadhiyaan wax way sheegaan maalin kasta hadda barnaamijka ka hadlayna kamid ah arrintan ka hadlaysa xalaqaad aan ka sameeyna anaga aan ka hadlayna dadka la yeesa iyo dhibaatada iyo diinta inay arrintaas bari ka tahay adiga hadaad maqlin culimo badan way ka hadashay qofkana in Allah laa yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim anaga dadka wax sheegida leenahay laakiin wax gacan aan ku bedeli karno mal qofka asaga ayaa la rabaa inuu ismuujiyo xataa dadka la liido ayaga la rabaa inay mowqifkooda qaataan inay is ogaadaan inay ismuujiyaan iyaga wax lagu tuhmay iska bari yeelaan ayaga la rabaa afka kaliya ma aha marka qofka markuu asaga isbedel uu ku dhacaya sidee tahay taas waxa ku sii dheer arrinta dhehaysa diin waa aan xalliweys diin man xalliweyn diinta beri naga tahay ninka muslimka iyo islaamka isku qaldin ninka muslimka xumaanta samaynayo islaamka beri uu ka yahay isku qaldin inuu qof kastoo xun haday jirto inuu islaamka diinta ay xun tahay ma nacam marka dhibku way badan yahay waa dhib laakiin dhibku ugu muhiimsan waxay tahay qofka akhlaaqda hadii laga dhaylo maxay yahay qofka hadii akhlaaqda laga dhaylo xataa gabadha aad sheegaysid cid u gurmanaysa ma laha qofka akhlaaqda uu lahayn akhlaaqda waxay ku sheegaysaa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi waxa aniga naftayda jeclahay walaalkeen la jeclahay diinteena in baraysa diinteena akhlaaq ku taagan marka anaga hadda akhlaaqayana laga duminaya markaad aragtid wax kasto laga dumiyo sahal laakiin akhlaaqda in la dumiyo oo social media ku faanayna ama idaacadaha laga sheegaya hebel gabara kufsaday magaal hebel gabara lagu kufsaday maxaa keenay warku Soomaali waxaas ma qaan jirin akhlaaqda ma qaan jirin walidaalika aniga waxaan aaminsanahay dadkan wax kufsanaya hay'ada lacag siiyo oo waxaan rabaa in la shaaci maxaa dhac xumaanta la faafinaya gabriel lagu kufsaday dad difaacayo diinta maxay ka qabtaa diinta waa rabaa in la tuhmo waa arag dad badan oo tuhmay war diinteena xukunkeedu waa cad yahay qofka xukmu tacziira jiro oo ilaa qofka dil gaarsiin karo hadii ay tahay ido aan la fiirin masalada ee karbaashki wax maxay qofkan waxba xoogay qofka oo qaatici tariiqa wax xoogane lug igana ikhraaf loogu goynaya laakiin مسألة هدف كل جل قال هذا كل يه أما حن قبا وأنا لكم مش قرصني هاي حتى قولين كان فيسبوك سوق جلايو وحمان أكحشونين ولا الصين ولا غيها بين هذا كذا بيان ولذلك أنا أقول حكم وارسني نضدك أيضا وانين وحنا وإلهي إلى كبق قبره إسقاونيسا أما كوان أو أرنت إلوك كوجا شيء أو أراس كست إسكو صورة أيوة قاون أيوة نيكنا صورة إن قبر لو ورثنا حمان كشكين يسو أو حمان تأه نينا إسكو دجن أو حمان وحسمينا يان أو أما اللوف يحنا واللوف قصاص معها فاحش على فافنا يا مركز تعسوا تأني كدينا لهنا ومدن إسئلالية إن ذاتك كجرو كبحة لعكتن ولذلك عذاب كان كهلينا كدم بي إلهي حليه فبشرهم بعذاب أليم عذاب اللين والآخرة آيات الله أولي آيات الدنيا ذاتك فاحشة جعل إنه فافتو إلهي حليه عذاب الدنيا آخره هلايان مركا وحلقيا قبل سناب جات كمان كستاجن وحسو صارت إن صلاته كنت على غيابه إن لقب على غيابه ننقبه مركز يحكوا هذا مية برايفتك وجرا فرنتس كي يلاقي داونا وريا كوبني فرنتس كأنه كود داو قبل إن عرض أي كمان يا أبني دين تبني سمحتها شق من يسد عادتك تستد دين تكون بني سمحتها ولذلك واحد كستوحنا كده إن التتبع قال ذي وحوض الراعية ورنا أخلاق أنهكته هذه أخلاق ذي وحي ولم يسدينته وستوبا ليه ولا جوجينها أخلاق ذا مركز ولذلك محرمات كفافي هذا كلمات كملت حتى قولوا الرواية هو كويس أنا وحنا إلهي كبقى وحنا والرواية ذا عندك أتوسيسين فيلم عربت مسلسل في سنة والله توجني ما تدخل برا توج سو وحضر مركز دم ولا قوانا اللي توجا لكن تدخل على برو سو وحضر على تصيع ولذلك هذا الماء كرتون ذي ليلة ولا قد يري قاركود ما حد عي تعليمه كجرت الماء وعلى تعبيره معايا لنا هناك الجورسنا وحلي قيانة زوجية نين كذا قيانته نين كله ودعوي حلال أي دين أشكتي إن لسه فرز أتراي نين كذا قيانة عنق نين كذا ومقنا عنق ضلي إن فين لو كيرو دين تفافين اسمعتها وحياوي وحشاطوي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الاستحياء من الله حق الحياة إن تها حديث إمام طبراني وكل شيء مركا أدي أنا حشات كنا لقى قاضي وشعب الإيمان لقى قاضي وفيسبوك كده يتد إنه إيمان قاعد نرفعه أبرنا تكون يسد كاسوا كدجين أنا قعدتك وشيء أنا اتقوا الله حرماتك إلهي كفافنا قالوا سو دجين وحكى فافنا قالوا حمان تأركتوا هذا نسي فافنا يسو قبر حقوق درس قبل ما أركته قبر قاونا الوريجينيا نين قاونا الوريجينيا وحكى لا الاسكندرية وإحنا اتقوا الله محايل دين تين وحقبتها إن لقوي من ستر مسلما ستر الله دين تأساس يقول لسنته دين تقول لسنته حمان قفك كأرت كفافين لكن هذا قالوا الأصول قالي
dhibaa dhacani sheegaya gabar hebelaa wax ku dhacday ila tali qisadaasaa dhacday qisasaa laga dhigay laakiin xumaana la faafiyuha gabadhaasaas ku dhacday ninkii uur yeelay kanaa ku yeelay cunuga hor galay maantana waxaa la sheegayna faaxisha dadka la faafina gabdhaha maqlaa ilmaha maqlaa caadi noqonaysa iyadan halo biri markuu la keenaya ninkeena aroodka ninkaan qaad ninkaan waa walaalkay ninkaan ay ikhwaani diinta saas ma aha diinta saas ma aha diinta waxa weeye diintan sitri ku dhisan tahay qofka ilaahay nabigina waa u ballan qaaday wuxuu leeyahay waa la cafina qof kasta cafis uu ilaahay ka mutaysana ilaa ninka dembigiisa ku faano dembigaaga ninka ku faana aa u dirtid waa dhibaato weeye inay isku dirtaan musawir qaaqaawin in isku diray iyo diinta ma qabto waa faaxishada la iska saalsado oo wax qof arag waxaan facebook ay saaran tahay ma aragtay nin asqaawinayo oo soo live ku jiro oo qaawi oo curidiisu dadka tusaa ay diin hada أو نكت أخلاق ديس وحويها ما قرنيس هذه لكن أنا أخلاق ذو نقدي ليا مرك أديها فافلين أديها هكو ساعدين قفك إن أخلاق أكفى في ست هكو فافلين قد تلفون قالوا هلو ها شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال بعنك ويدينا إياه. هاي صباح واي شيخو dadka intay tiifiyada hor fadhiistaan hooda caayo shicibkooda caayo sheekooda caayo shariifkooda caayo cid walba caayo dadka dambigooda muxuu yahay نعم وخلط هاي السيدة فيري ميت وارنتا حتى مدحونياش انت العينيا dadkii aan dhintay qofka ilaahay nabiga kaleey salaam wana ka tirtaan wuxuu leeyahay dadka mootada iska dhaafa waxa ka sheegin diinta ma banaan caya ku banay maxay yeelay qofka muslimka ah ان عربكaaga waa المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او عربكaaga dadka ka nabad galaan laakiin waxa walaalku wuxuu ku caayna xataa ma ogo wuxuu asaga oo birhadii ilaahay qiyaamaha ugu yeelay qiyaamaha ilaa maalinkii يوم القيامه dadka wal iimaana يوم يقوم الناس لرب العالمين war qabiil dhan u caynaya qabiil dad fiicna ku jiro dad xuna ku jiro reer dhan u caynaya wuxuu caynaya nin madax u caynaya wax ma ku haysa cad ma hadii lagu soo joojiyo lagu leeyahay qiyaamaha wuxuu dhigi kara ilaahay ninkan cadeed lagu leeyahay maxaa sameeyay ولذلك هو مصيبه وي اخواني عربك ثكلتك امك يا معاذ النبي عليه السلام وحول ليه وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم وكما قال النبي عليه السلام وحول ذلك نار محاجي عربك هاجي ولذلك عربك ولا اله الا قد تليفونك هلو هلو نعم اذا عايز صدق انا اديس oo shakhsiga ah qofku xataa dacwo ku soo qaadi kara waa dacwoon kara xudhi kara qofkan waxa igu soo cadeeyo oo qofka dacwo dhaxmari karta laakiin tan ugu daran waxay tahay in diintii waxay taabanaysa la faafiyo arin diin reebtay la faafinaya arin diin reebtay ayaa la faafinaya oo waxa la leeyahay dadka waxa lagu dhigaa caadi lagu dhigaa wax caadi ah qalbiga dhow muxuu noqonayaa walaal waxa iimaanayso en qofka inuu qalbigiisa oo cabo xumada qalbiga hadii cabto oo caadi waa waxaan caadi تلاهيت مركز دنبا أي قفك كوس قلبي قاسية القلوب وأن قلبي أتكاده ولذلك محي سومال هذا وهالشيء لا هاي محد دذا حكي شقيوها قلوبتي إني أتكات أنا وحيابي قلوبتكو أتكات محكي ذنوبتان لفافينها كميدة ذنوبتان إسلامتان أن مركي حفلت دكتو لسه صورايو ولذلك مشكلة إنه كان أنا قرنتها في السوشيال ميديا مرة كان سوال هذا أنها حمان كستا كل شيء جينا جبر أسكت إيماني سعباد يسحق كل هذا نينك الأوتجي تذي أو شيء جيسا لكن لو عذابي فاحشadaas ilaahay subhanahu wa ta'ala u cadaabay wax sahlan ma aha markaati ma u haysa cadeen ma haysa maya hala caybeeyo hala caayo waa mushkiladna haysad way qadka telefoonka halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ميا ها su-aashii marka horta ku weydiinaysa maamada ugu horeysay oo ahayd gabadha haddee ninkeeda iska farto oo ninka kaleto aroosanayso haddana iska furayso ninkeeda kusoo laabanayso waxaan rabnaa su-aashaas inaan naga jahli jirto si fiican gabadha ninkeeda hadduu furo kow waxaa shardi ah ninkeeda inuu ka cido tirsado ninkaas iyadoo ciddadiisa ku jirto nin kale ma aroosi karto islaanteed waxay tiri bil ka bacdi nin kale guursatay ba sheegaysa ciddadaas markay tirsato nin ay la heshiinin oo ama ay beri iska fureynin ama asaga oo lasoo heshiin inay guursato waa shardi kale haddii kale nacala allahu almuxallil walmuxallil nabiga calayhi waa lacnaday ninka xalalaayo dadka uu xalilaayo iyo kii loo xalaaleeyay ilaahay waa lacnaday iyo gabadha loo lacnaday oo loo xalaaleeyay waa soo galaysa muxallal lahu soo galay qofka loo xalaaleeyay marka ma banaana maxlalka nabiga calayhi salaatu mustacaar ma banayna marna xaraan weey ay dhacal marka oo heshiis oo yimaado muddadaas ay qabaysaa ولذلك ما بنانو
hadday laga qarsado oo iyada qarsatay niyadeeda ee tabiyatu niyi ku jirtay inay ninka iska furto kii hor ku naqatay iyada ninkaas xaaraan oo ka naqaa kii horna kuma naqan karto maxaa yeelay zawaajku waa istimraari waa inuu socdaa la rabaa laakiin inaad tiraahdo bilka bacda iska fura ama markuu shuruuda kale oo guurka loo waxay tahay ninka kale ay guursato waxaa sharteedan inuu u galmoodo u taga gogol seexdaan laakiin waa nin banaanka jooga maxalla lahaa dhow iska fura ninkayga ku naqanaana ma jirta ayadana kaas waa haddana kicita dirsataa ka bacdi kii kale ku naqanaysa haddii shuruudaha aan sheegay aan la helin haddii waxaas laakiin wax laalaab ay soo galaan kii horan ma ansaxay ninkaxiis kan damban ma ansaxay qadka telefoonka halow halow assalaamu calaykum sheekh wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waxaa ku weydiinaa haddii su-aal deynta ku saabsan haddii bimatalan gabadhu ay ninkeeda lacag ka daysato oo ay lacagta uu yidhaha dayn bay kugu tahay oo aanu mar dambe aanu kana saamixin ninkiina uu dhinto amba ay kala tagaan oo dhul kale ku kala maqan yihiin gabadha miyaa lagu leeyahy waa lagu leeyahay nacam ama hadduu dhintay waa lagu leeyahay hadduu dhintana dadka dhexli lahaayay siinaysaa oo iyada nafteeda waxay ku leedahay hadduu xaaskeeda xaas u ahayd dhaxalkaas waxay ku leedahay haddii uu nool yahayna meesha uga jooga raadinaysaa ama waa ka cafis dalbanaysaa ama inuu celisi waayo ama inuu cafis u dalbato nacam gabadhuna hadday ninka dayn ku leedahay masla xeerkaasunba nafs waa iska xeerkaas laftigeed marka laisma saamaxayo haddii uu ku saamixi waayo lacagti waa saa uu kugu leeyahy waa kuwa sida kugu leeyahy nacam jazaaka allah khayr nacam ayib waxyaabaha uu marka ay keeni karto waxaa ka mid a waasici dacf aliimaanka waa sheegnay wasaa'ilkan faafayo oo dadka ay faafinayaan wuxuu keenayaa waasica iimaanka ayuu qofka ka qaadaya waxaa kale oo qofka uu ka keeni karaa inuu naqdo waan sheegnay qalbigiisa inuu qaasi u naqdo oo qalbiga adkaado maxaa yeelay ceebtan aad faafinaysid waxaa kale keeni kartaa dad kastoo daawado waxaa faafisay 10 kun aad ku faanaysid iyo 2 kun ay daawataa dhaysid oo dadka ka qasursiinaysid adiga aad joog ka dhigatay ama aad ka dhigatay wax fan ka dhigatay dembigooda adaa leh maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay qul lil mu'miniina qudu min absaarihim dadka absaartooda oo liir hadda boolan ayaa u soo bandhigtay xumaantaada tustay waxa ka sheekaysa waa xun xaaskaaga ku qaba adiga soo gashay markaas xaaskaaga adiga aad meesh ku cayaaraysan dadka hortooda yaa ku baneeyay xaaskaaga hortooda hunna libaasun lakum antum libaasun lahunna dhar wey waa inaad meel aad isa gashaan wey maahan inaad dadka hortooda keentaa tiraha waa asqabnaa xumaanaan ka sheekayna cid ka yeelaysa mala dembiga dadka kugu daawada leela lacagta oo ama aad dad u shaqaysid ummadda akhlaaqda kaga dhel lagu yirin ilaahay adaa ku og nacam dhahay isqarinaya magac kale Facebook ku samaysanayeen ama Snapchat-ka kaasa ugu daran asagana maxaa dhacay ilaahay kama gamban dadku ka gabada kaas dadka ka cabsan ilaahay waxaan ka barin xalaqaadkaas ayaan ka hadli doonaa iyo dhibaatada leedahay iyo waxyaabaha arrintaas tocod ayaan ka hadli doonaa xalaqaadka dambe haddaan wax qalday nafteyda iyo shaydaanka ka ahaatay haddaan saxna tawfiiqda ilaahay subxaanaka allah وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمك شخصية أو إسلامك كدونيو إسلامك